السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر دوادا channel كراس ميديا. أنا جوحنا هاي أحمد راس محمد فرح وحنا هالكان إذا كوسو قد بندونا برامج عن إسلام هاي وحبذا أي منافعة برشة أي أطر دونان أما نرش هذا وحبذا أي كبدل دونان فضلا هدي أب نقول صبت هاي نقول بير أو سبسكرايب صار الجنال كنا من نقول صاحب بذا حقتنا ستة أو هلا ورجينا إن حق البوان صدقنا أي وحن كوسو كردين دون تهدي الله ود الإدماء. وهرين موضوعنا maanta waxaan ku bilaabeynaa sideed ku noqon kartaa qof wanaagsan inaad qof wanaagsan noqoto waxay u baahan tahay dadaal iyo fikir dheeraad ah iyo in Ilaahay kula garab galo ama oo qaatumada ku haleeshiyo dadaalku waa laga maarmaan waana muhiim in qof waliba oo muslim ah uu ogaado sababta dunidani loo keenay oo ah kaliya inuu Ilaahay caabudo wixii la amrayna oo qaato wixii laga reebayna oo ka haro ugu horeyn marka aad Ilaahay si toos ah ugu xiran tahay oo salaada farad iyo sunnaba aad ilaaliso quraanka akhriso soonto sekada bixiso hadii ay kugu waajibtay xajkana gudato hadii aad markaasi awoodo sadaqada bixiso qaraabada xiriiriso diinta fidinteeda kaalin aad ka qaadato xalaasha ku dadaasho tala saarashada alle badiso amaanada ilaaliso ballamaha oofiso shaki kuma jiro inaad asaaga harcad dhaafayso alla subhanahu wa ta'ala oo ku gaarsiin doono kul degdeg ah oo aad ku liibanto aakhiriya doonba isla markaasna aad ku shaqeyn doonto firfircooni waxaad heli doontaa in wax walba ay ka noqdaan ikhlaas markii intaasi wanaaga aad ku sifowdo sabarkaaguna uu badanayo cilaaqaadka aad dadka la leedahay uu fiicnaanayo goobaha aad ka shaqeysana ixtiraam iyo qadarin dheeraad ah aad ka heli doonto dadka kugu xiran guud ahaanba toosnaanta iyo qofku inuu Ilaahay wixii uu amray qaato wixii uu ka reebayna ka haro waxay qayb ka tahay qofka waxyaabaha uu ku helo qanaacatul qalbi ama niyad wanaag Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qowlkiisa ku leeyahay ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومعنيه يحيى الله سبحانه وتعالى wuxuu quraankiisa ku yiri qofkii alla ka doorsada wado ayaan u furnaa meel uu san filayna waan ka qoodinaa haddaba waxaan ku soo gudbinaynaa dhowr talo oo muhiim u ah noloshaada iyo inaad toosnaato waxaana kamid ah kow in aad ku dadaasho cibaadada alle oo aad wax walba qabashadooda ku dhisto raaligelinta Allah labo inaad isaga fogaato dhammaan waxyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala xaaraantinimeeyay qaadatana waxyaabaha diinteena suuban ayna farayso saddex in aad dadka tusaale wanaagsan u noqoto dhan walba oo wanaagaaga lagaaga daydo una nasteexayso guud ahaanba dadka kugu xeeran afar suuragal ma ahan in aad mar qura iswada bedasho laakiin u istaag sidii aad isku bedeli lahayd Allah subhanahu wa ta'ala ooga bari in wanaaga qaadashadiisa alle uu kula garab galo ducada badi ikhlaasna wax walba ka ahaadaan guud ahaanba intaasaan ku soo gabagabeynaya muuqaalkeena maanta waxa idin la socodsiinaya anigoo Axmed Raas Maxamed Faarax hadii aad wax un ka faa'iiday fadlan subscribe saar furana calaamada gambaleelka ama jaliska si aad la socoto xigmado badan oo aan isleenahay nolosha aadanaha wax ay ka bedeli karaan oo aan ku soo gudbin doono channelkeena Raas Media meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo.